adiga maxaa ku hay war manaad baa kaa dhaxalaysaa maxaa ma sida nimanka ragga u hadashid رسمي ما بقشع رسمي ابا ما بقشع. السلام عليكم دمان أصحابتي ميل walba joogtaan mar labaad iyo mar saddexaad ba isku soo noqdo wanaagsan kanaalka adiga daawanaysa waa Khadar official fadlan haddaad kanaalka cusub tahay subscribe-ka noo saar like iyo share tuna waxa weeye waa dhiirigelin bay noo tahay muuqaalkan aan rabaa caawa inaan ka hadlo mar raba inaan ku sii dheeraado balse laakiinse waxaan rabaa wixii fikirkayga ama ra'yigayga horta inaan ka dhiibto saad ku aragtaanba waana cilada ka jirta badanaa dhanka TikTok-ga hadday noqoto fanaaniinta hadday noqoto youtuberka iyo hadday noqoto dadkii hore tiktokerska hore u ahaa ciyaari jiray giimamka insha Allah marka muuqaalkan ku sii socdo wixii fikirkayga baan ka dhiibanaya anigu markaas qaalidow aboo horta marka koowaad waa ku salaamay adi qaastoo mahadsantaa cali cadaawa sidoo kale ma fahanteen horta wiilkan I don't know meeshuu ka xifaaltamaayo iyo waxa haayo iyo waxa gubaayo wuxuu dhahay anaga rasmina may matalaynin ereyga uu cali cadaawa ka dhawaajiyay waxay ahayd haddii gabadhaas qabiilkooda difaacanayeen in adeertaayaheeda maxaa u difaacan weyse horta aniga nin qabiilaysto oo habeen iyo maalin reabtigiis iyo reabihiis ku dhegan ima difaaci karo waxa ay difaaci karta Soomaali Maxamed markii laga soo tagana daarooda ay difaaci kara ma fahanteen صح qaalid waligay aqoon uma leheen korkaas iska arki jirnay korkaas iga aqaan waxaan ay mudkeen caawi maadu ii ciyaaruna maxaa daaro tahay game kaaga ma ku ogaade waa adiga adaa ii sheegay okay hanad I don't know wuxuu ka kuliyay wuxuu ka gubanaay maraa wada hadalnay wuxuu igu dhahay adi filmaan wax buu iga shisheekay waxa ku dhaw walaalow ani gabadhaas laba gabal oo kala ciyaareyna galmudug iyo Jubbaland ma fahanteen waana ciyaareyna ayaan afcad ku dhawan ku kala tagnay caawa markaan game-ka u horeysa u soo koray intaan gabadha soo qabanin wiilkan uu soo qabsado wuxuu iska soo jiray ani aad Soomaana wada hadlin maxaa game u dheelo war ani adiga ma dhalan ima xukurtid teeda kale Sweden aad gaajo ku tahay adaa $100 ku tuugsada oo u baahan brother ma fahantay naag shaqeysata ah aniga gabar fanaanada gabar Soomaaliyeed ah rasmina ma matasho war xagga ka kulushahay walba qaniisa lagu xamanaa qaniis runaa tahay no rasmi abay halka gaarin rasmi qof dumara qaniis baa tahay saad arkaysaan horta waxa isku dhigsan waa hanad iyo fanaanada la dhaho rasmi rays waxaan la yaabanahay fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan horta gamers baa markii hore ciyaari jiray TikTok dad TikTok garaaba ciyaari jiray waxaan barnaamij TikTok ku jiray buu ahaa inay fanaaniin Soomaaliyeed oo magaranaysa ummadoo dhan ka dhaxeeya ama qof fankiisa la dhageysto ama heesiisa la dhageysto ama show iyo meelo badan ku qabsado inuu horta dhiiqadan soo galo ma baysan hayba oo markaan ra'yigayga anigu aan ka hadlo waayo waxaan arkay fanaaniin badan oo game-kan ciyaara oo hadda isku soo fara badanaya oo aad moodid inay isku soo tilmaameen oo aad moodid qaar badanna ay waliba ay reerahooda ay dabada gelinayaan qofku markuu fanaan yahay kolay uma baahnid inaad magaranaysaa qabiil aad dabada gelisid qof shacab badan ku xidhay baa tahay taageero badan adigoon qabiilkaaga dabada gelin baad muujin kartaa inaad Soomaali weyn oo dhan abooto oo qofkaas kula ciyaaraya adiga ee qabiilka isagu salka ku haya inaad kaga guuleysan karto markaan waxaan fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa haddaad kolay baashan waxaan horta waa lacag weyn lacagtuna meeshii doontay ku gelinaysaa waxa maanta dadka isku diray ee Soomaali isku diray ee magaranaysaa dhalinyartii baalkan markii hore iska ciyaari jirtay isku diray waxa weeye waa lacag weyn waa sidii lacag loo sameyn lahaa maskaxdii baa la fakaray aakhirkii waxa lagu tustay in magaranaysaa qof kastaaba uu ku faa'iidi karo inuu qabiil fuulo qof walba nin walba reerkiisa inuu dabada geliyo arintii waxay soo socotay hadda fanaaniintii soo gaadhay saad arkaysaa waxa maanta isku dhagsan waxa weeye waa qof fanaana iyo qof TikToker ahaan jiray oo badanaa dadkan heesaa isdul saara waa ninkan yareedaan hanad waa TikToker iyo magaranaysaa qof fanaan dhan oo madnan fanaan u ahaa waxa isu keenay anu ma garan karo laakiinse waxa isu keenay waa lacag waa balaayo aan ku socono waxaa sheeganaysa reer warfaaga sheeganaysa ogaadeen idaaro xag iska dhig ayaan kula ahay haddii hooyi aaba ku dhalan oo marta ma inta qof soo fuushay magaca rasmi ciyaar haddaad ka saaro waa u dhimanaysaa rasmi abay maqal rasmi aniga ixtiraam hadaad ii haysid
waa ku ixtiraama qaalid laakiin intaa la seexan waad aragtaa waxa ay ka dhacaysa soomaalida geemkii khalad bay ka fahmeen intooda badan social mediana waxa weeye totally sorta khalad baynu fahnay haddii la dhaho magaranaysaa maanta haddii tiktok wax kaloo cusub xitaa lagu soo kordhiyo soomaalidu sidii ay ahayd wixii uma isticmaalayaan si kaloo ka duwan baa loo isticmaalaya waad aragtaa maanta waxaa haysaysta waa tiktoker nin ah iyo gabar fanaanad ah waxa isu keenayna waxa weeye waa lacag iyo gift yar oo magaranaysaa dad jeebkooda ay ka dirayaan shilimaad yar oo qof jeebkiisa ka dirayo inuu qof isku keen diro ama aad qof u aflagaadiso ama nin rag aad qaniis ugu tilmaamto horta wax meesha yaala totally ma baha waa qodobka koobaad qodobka labaadaan odhanayo waxa weeye fanaaniinta Soomaaliyeed kulliba hadaynu waxaan deelayni ku sheegay inay meesha lacag u taalo horta meesha lacag ma taalo ee waxa yaala isduleysi iyo in la isduleeyo inaad qof maanta dhinta isku duleyso aad barido tiraado hebelow maasan inay yaro khayrkaayo shaqaysanaya ama lacag uu soo shaqaystay jeebkiisa ka bixinaya inaad maanta dhan ku amaanto weeydi waa shilinka wuxuu u bixinayaa waa inaad amaanto marka ninkaagii dhamaa ee sharaftii sumcadda lahaa ee karaamada lahaa ee ummadoo dhan magaranaysa dee wax kale ay ka aaminsanayd intaad halkaas soo fadhiisato weliba adoon fanaannimadaadii aan ku soo fadhiisanayn adoo magaranaysa gabadhay ama adoo fanaanada meesha ku soo fadhiiso ama ninoo adoo meesha fanaana ku soo fadhiiso idinkoo ku soo fadhiisanay midna oo qabiilkiina reerihiina aad ku soo fadhiisanaysaan inaad haddana lacag darteed ay isku bahdishaan meeshan horta lacag ma taalo sharafna ma taalo sharaf dhac magaranaysaa in dhiiqa lugaha lagu geliyo mooyaane wax kaloo maanta meesha yaalla dee ma jiraan saad aragtaan qof fanaanana ama caamba ama bulshada magaranaysaa wax u hayana kulama taliyo inuu tiktok intuu soo fadhiisto inuu game ka ciyaaro waayo qofku bilaadanku waxa lagu dadaalo waa sharafta iyo sumcadda haddaad lacag ku helayso oo lacagtaa doonto ay ku soo gelayso sharafta waxaa la dhahaa horta lacagmi yacni lacag kuma goynayso waxa ugu wanaagsan ee qof bilaadan yeesho waa sharaftaada iyo sumcaddaada dad ku ciyaartana dee kolley aduun bay magaranaysaa inkastoo sanadadan wixii magaranaysaa sharaf dhaca loo yaqaanay bay dadku maanta sharaf u yaqaanaan marka kolleyba fanaan haddaad tahay waxaan kuula talin lahaa aad rabto inaad game ciyaarto qabiilna ha fuulin reerna ha fuulin shakhsiyadaada magaceed ee fanaannimo soo fadhiiso haddii lagu ciyaarana arag haddii lagu ciyaari waayana faraha ka qaad anu kolley qof Soomaaliyeed oo fanaaniintu bartaa soo fadhiisto oo weliba reernimo uu ku soo fadhiisto abti fankaagana waxa weeye mustaqbal kama lihid wada qofka fanaanka waxaan ognahay dee inuu yahay qof magaranaysaa showgiyo qabsado meelo badan tago safaro inuu tago dee waxaad rabtaa inay dadku u yimaadaan laakiinse markaad maanta oo dhan halka life aad ka qayliso ood reerkaaga soo fuusho ay dad intay kuu soo fuulaan lifekaaga ay ku dhiiqaystaan dee dhibaatada hadhowto kaaga timaada waa mid aad isu keentay weeye